Assalaamu calaykum akhyaarta. Maanta waxaan ka hadlaynaa si fudud oo aad gabar jacaylkaaga ugu dhici karo ama ay kugu jeclaan karto. Waxaan kula wadaagayaa 5 arrimood oo kaa saacidaya inay gabar ku jeclaato ama jacaylkaaga uu ku dhaco. Lambarka 1, ku aqbal sida ay tahay oo xaalad walba ay ku jirto ku aqbal oo muuji inaad ku qaadatay xaaladaas. Lambarka 2, muuji inaad tahay qof mas'uul ah oo la isku halayn karo. Inaad muujisid inaad tahay qof mas'uul ah waxay kaa saacidaysaa inuu qofku kugu kalsoonaado oo isku haleeyo. Lambarka 3, u soo jeedi ammaan daacad ah. Waa in aad ku ammaantaa dabeecaddeeda iyo quruxdeeda si ay u qanacdo. Dareensii inay tahay gabadha ugu wanaagsan gabdhaha ama ugu dabeecadda wanaagsan ama ugu quruxda badan. Lambarka 4, tusi daryeel iyo deeqsinimo. Waa inaad tusisaa inaad daryeelayso ama waa inaad siisaa wixii ay kaaga baahato. Waa inaad u muujisaa inaad tahay qof mar walba garabkeeda taagan. Lambarka 5, waa inaad xirataa dhar soo jiidasho leh, waana midka ugu muhiimsan. Haddii aad ahayn qof soo jiidasho badan, waxaad xiran kartaa dhar soo jiidasho leh. Haddii intaas aad samaynin, waxay noqonaysaa waxaad soo sameynaysay oo dhan hal bacaad lagu lisay. Waa muhiim inaad soo xirataa dhar soo jiidasho leh si ay kaaga hesho gabadha aad doonaysid. Run ahaantii, dumarka oo dhan isku dabeecad maaha, way kala dabeecad duwan yihiin. Dumarka qaar ayaa waxay jecel yihiin ragga mas'uuliyiinta oo u muujiya daryeelka iyo naxariista, halka dumarka qaarna ay jecel yihiin ragga quruxda badan ama soo jiidashada leh. Sidoo kale, dumar waxaa jira ka hela ragga lacagta haysta ama deeqsinimada leh. Marka adigu hadba waxaad muujisaa dabeecadda gabadha sida aad u aragtid. Waxa ay dumarka oo dhan ay ka siman yihiin waa in la ammaano. Dumarkuna waxay jecel yihiin in lagu ammaano quruxdooda. Sidoo kale, dumarku waxay jecel yihiin qofka fahmi kara dabeecad ahaan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Fadlan, haddii aad ka heshay, subscribe hanaga ilaawin. Nagu xirnow mar walba. Mahadsanid.